ururka daryeel walaalo in muddo ka shaqeynayay gacan qabashada dadka jilicsan iyo u hadalka dadka masaakiinta ayaa xarun ka furtay magaalada Burco gudoomiyaha ururkaasi Mukhtaar Maxamed Jaamac oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexdeeda ayaa bulshada muxsiniinta ah ka dalbaday in uu dadka gacanta ku haya masaakiinta in ay wax la qabtaan oo ay la caawiyaan waxaana hadaladiisa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim وبه أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كسو دوادا حفيز كجودة دريال ولال حفيز كجودة دريال ولال charity organization حفيز كجودة دريال ولال charity organization وحكوية على مقالة برعو كارهان حافظ أفقوية برتمها مقالة برعو حفيز كجودة دريال ولال أما دريال ولال جودة هنتي بأورك سمفلك دريال ولال وحقوها ديجا بالشدة الدنيا ارتاح وحوكشقيا عاونت ضدك الدنيا ارتاح daryeelka agoomaha qabashada sakaatul fidriga iyo sakaatul maalka ururka caawinta samafalka dadka jilicsan ee daryeel walaal waxa uu fuliyaa amaba uu dhisaa masaajidada waqafka ah ceelasha waqafka ah birkadaha waqafka ah madrasadaha ama malcaamadaha waqafka ah iyo guud ahaan wixii waqafa ee aad ula baxayso sadaqo naftaada qoyska ehelka qaraabada intaba ururka samafalka daryeel walaal waxa uu muddo badan u ka shaqeynayay oo uu soo gacan qabtay oo uu soo taageeray oo uu soo tabantaabiyay oo uu soo taakuleeyay dad badan oo danyar ah oo runtii gobolada iyo burcaba u jooga waxaanu ka codsanaynaa dadka muxsiniinta dadka muuminiinta dadka samafalayaasha dadka naftooda la jecel khayrka isla markaana maanta naftooda ka qaadaya birina u qaadaya naftooda dadka meel doonaya inay sii dhigtaan aakhirana wax ula sii baxaan ururka samafalka daryeel walaal inuu gacanta ku hayo dad badan oo masaakiina dad badan oo danyara dad badan oo tabaalaysan dad badan oo waalan dad badan oo agooma dad badan oo aan waxba haysan oo ilaahay ka sokoo daryeel walaal ay ku degan yihiin kuna xisaabtamaan walaalayaal waxa wax la isugu yahay in la istaageero adduunyada wixii jilicsan aynu taageerno si inaguna maalinta aakhiro sadaqada aynu baxayna waxay noola tarto ururka samafalka daryeel walaal wuxuu ka codsanayaa dadka muxsiniinta inay ka soo qayb qaataan dad walaalahooda oo danyar ah oo runtii tabaalaysan oo aan mucaawino gaarsiin hadii Allah hooda leedno ururka samafalka daryeel walaal wuxuu gacanta ku hayaa uu wax gaarsiiyay dad qoysas gaaraya ilaa 2000 oo qoys ilaa 2500 oo qoys ayuu wax gaarsiiyay oo uu gaarsiiyay dhammaan agabta kala duwan ee ay u baahan yihiin haday noqoto cuntooyinkii haday noqoto qaar uu guriyo u dhiso dad walwaalna haday noqoto qaar uu suuliyo u dhisay iyo haday noqoto dad waayeel ah oo waxa weeye goblana oo gacanta ku haya intaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u codsanaynaa dadka aanu gacanta ku hayna dadka muxsiniinta inay ka badan yihiin gacan ku hayntayada sidii wax loo tari lahaa waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ee walaalaha iyaga ah ee jecel naftooda inay wax ula baxaan ururka daryeel walaal waxa uu ku hayaa dad masaakiina oo baahan oo sadaqada ku baxayso oo aanu soo kormeernay oo aanu soo eegnay oo qaar kood markii aanu tagnay aanu kormeernay habeenada qaar aanu tagnay wallahi qaar aan saddex casho wax naf la cunin iska badaaba oo qaar markay waxay cuneen waayeen caruurtoodii iyaguna u soo dirsanaya suuqa u soo dirsanaya ku oranaya hambooyinka ka soo cuna hooy anagana wax naga soo qaada qoyskii igu darnaa iyo qoysas badan ay jiraan ayaan qoys kamid ah habeenada kamid ah kormeeraya qayb kamid ah xaafadaha Burco waxaan u tagnay qoys markii hore baan warkiisa haynay oo hooyo ah oo laba carruur ay tahay ay hayso labada carruur waxay u dirtaa suuqa waxay tiraa hambooyinka suuqa idinku wax ka soo cuna anna wixii aad iga soo qaadi kartaan iga soo qaada walaalayaal dadka waxay jaar yihiin dad walaalahooda oo muslimiina oo laga yaabo inay wax haystaan oo laga yaabo inay dhergaan oo laga yaabo inay dibadda ku soo qubaan iyaguna waa dadka hambada ka soo dalbanaya hudheelada in looga soo qaado sidaa darteed waxaan dadka walaalaha iyaga muxsiniinta ka codsanaynaa sadaqada aad soo dirtaan waxa idin maraysaa meel aamina sadaqada aad soo dirtaan waxa idin tagaysaa halkii aad ugu tala gasheen sadaqada ay soo dirtaan waxay u tagaysaa dad danyar oo u baahan oo duruufaysan oo tabaalaysan oo maanta waxa aad soo dirteen wuxuu taraya waxaan maanta gacanta ku haynaa oo u baahan imika aan hadda kitaabo quraan u qaybinayna arday agooma oo gaaraya 350 arday ayaan ugaga soo socdo u qaybinayna kitaabada quraanka malcaamadaha ku dhiganayeen ardayda agoomaha ahi waa arday aan heli karin
agoomaha kala ladane waa arday aan heli karin kitaabadii quraanka ahaa kalaamkii ee been malcamada ku dhiganayeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku codsanaa dadka muxsiniinta ah inay ka soo qayb qaataan taakulada iyo tabantaabada uu wada daryeel walaal khayr Allah idin siiyo aakhirad u baahantiin maalin kale wax idin taraysaa maalin kale idin anfacaysaa maanta akoonkiina wax yaraad ka soo saartaan waxa laaliyo xiskan nusqaminaya ma jirto $1 hadaad soo dirtaan maanta qof walaalkeena bay wax u taraysaa xafiiskan ururkan daryeel walaal waxa ku xidhan yahay waxa ku xidhan dad badan oo dan yar ah oo waxa weeye saacadii yar aan fadhiisanaba intaas oo dan yar ayaa noo imanaysa iyagoo baahidooda iyo dhibtooda aanu la dareemayna haysata marka walaal nala dareem baahida iyo dhibta iyo wax la'aanta haysata walaalaha muslimiinta محمد عبد الله جولاد محمد برار تلفزيون عالمي جوجو نيمو مقالة برعو.